socon kartaan wararka ugu xiisaha badan ee geeska iyo geyiga ay Soomaalidu degto. Qodobada ugu doorka roon wararkaan idin haynana waxaa ka mid ah Abwaan Axmed Budul oo aflagaadeeyay beesha reer Cabdille, ciidamada Tigreega oo qarka u saaran inay makala qabsadaan, saddex ka mid ah shaqaalaha hay'adda NSF oo lagu gowracay deegaanka Tigray. Qodobadan xiisaha badan iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa. Fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe sar channelka gambaleelkana furo si aad u hesho xogaha ugu dambeeya. share dheh oo la wadaag asxaabtaada, xagga hoosena kala bixin ugu reeb. ku soo dhawaada qodobadii wararkeena oo tafaatiran. waxaan idinla socodsiinayaa anigoo ah Marwe Yusuf. kulan ay xidh cudla ah iyo geed hoostii ku qabsadeen beesha reer Cali ee reer Isaaq oo abwaan, fanaan, wanaan, manaan, mulaxan, siyaasi iyo culimo iyo caamaba isugu timid oo uu soo qabanqaabiyey Mustafa Cagshar ayaa wuxuu Abwaan Axmed Budul masraxa kulankaas ka qaaday dhaanto aflagaadaha oo madaxda lahaa Mustafa Cagshar looguna gafayo beelweynta reer Cabdille. kulankan xidhka cudlada ah ka dhacay oo ujeedkiisu ahaa damaashaad loogu dabaaldegayay guul uu Mustafa Cagshar sheegtay inuu ka soo hoyiyey dagaal cod iyo dhul ah oo uu la galay beesha reer Cabdille iyo jabkii uu u geystay ayaa waxaa ku ceeboobay oo maradii ka dhacday Abwaan Axmed Budul oo sheegtay inuu yahay abwaan Soomaaliyeed, balse maalinkaasuun afkiisa ka qirtay inuu abwaan u yahay keliya beesha reer Isaaq ee uu ka soo jeedo, isagoo cadaystay dibaddana u soo saaray wixii urkiisa ku jiray oo ahaa cadifad u qarsoonayd oo uu reer Cabdille u qabay, isla markaana halkaas iskaga xayuubiyey sumcaddii iyo ixtiraamkii abwaannimo ee uu guud ahaan Soomaali ku dhex lahaa, gaar ahaanna shacabka Soomaali galbeed. Mustafa Cagsharna wuxuu dhaantadan uu midhaheeda isagu iska lahaa ku caddeeyey hadalka gafka ah ee had iyo jeer laga sheego ee ah ma aragteen sidaan u galay reerkii kibirka badnaa, isaga oo reerka ula jeeda reer Cabdille. bal haddaba nala daawo farxadda iyo jaanta iyo jiibinta ka muuqata reerka reer Cali ee reer Isaaq oo yar iyo weyn macal madaxweyne xafladda u samaystay inay walaalahood dhibaateeyeen, wadartoodna iskula quman oo ku faraxsan, lagana dhaxwaayay shaksi dhaha war waxba ma aynaan jabinin, haddii aynu jabinayna walaaladeen guul inooma aha ee jees-jeeska inaga daaya, nafsina ha inoo gurina si aysan berri inoogu dhicin jabka maanta Tigray haysta oo kale. Nucnaha dhadhamaya ee dhaantadan ayaa ah guntii reer Cabdille iyo dhibkoodii ka baxno nasri iyo naruuraanu helay mar haddii aynu midownay oo aynu madashan isugu nimid waa inaynu reer Cali ahaan u midowno cadowgeena reer Cabdille oo aynu awoodeenna u muujino ee Rabbi naguma soo celiyo. laakiin wuxuu Mustafa Cagshar midhaha dhaantadan ka iloobay inuu raaciyo insha Allah. Abwaan Axmed Budul waxaan u soo jeedin lahayn inuu ka garbaxo beesha sharafta badan ee reer Cabdille, isla markaana uu dhaanto raaligelin ah ka bixiyo. waa haddii uu weli isu arko abwaan Soomaaliyeed rabana inuu sumcad, ixtiraam iyo karaamo ku sii yeesho gudaha ummadda Soomaaliyeed ee uusan ahayn abwaan reer Isaaq u gaar ah.
gaadiid aan tiro lahayn iyo ciidan tiradiisu kor u dhaafayso 5,000 oo askari ka qabqabtay ciidamada militariga ee Abiy. dagaalo lagu hoobtay oo ay ku qaadeen saldhigyada Agula, Adibalu, Abiyadi, Adigad iyo Wuqro. waxayna soo bandhigeen ciidamada TPLF muuqaalo gaadiidkii iyo saanadii ay furteen ah iyo weliba ciidamadii ay dagaaladaas ku qabteen oo hadlaya sheegayana sida ay wax u dhaceen iyo sida lagu qabqabtay. sida la xaqiijinayo badi ciidamadani way isdhiibeen kadib markii dhan walba lagaga yimid ee ay arkeen in laga itaalroonaaday oo aysan meelna u baxsan karin. ilo xogogaal ayaa xaqiijinaya in sababta ay ciidamada TPLF maalmahan guulahan waaweyn u gaadheen ay tahay saraakiisha ciidamada militariga Abiy oo qaarkood ay si hoose oo dahsoon ula shaqaynaya ciidamada Tigreega una gudbinaya xogaha muhiimka ah ee ciidamada militariga, fadhiisimadooda, tirada ciidanka goob walba, nooca saanada ay sitaan iyo dhammaan dhaqdhaqaaqyadooda, iyagoo u arkay inuu dagaalka waqooyi xaaraan yahay oo lagu amray inay shacabkoodii xasuuqaan. waxaa kaloo qayb ka ah shacabka Tigreega oo u guntaday dhabarjabinta ciidamada Abiy ee goob walba iyo bixinta xogaha fadhiisimadooda iyo waxa ay arkaan goob walbana ku lug haya. isku soo wada ururiyo saraakiil badan oo ka mid ah ciidamada Abiy ayaa hadda uun ka biyadiiday dagaalka waqooyi una arkay gumaad ay dadkooda u geysanayaan oo lagu khasbay lagana dhaadhiciyey in Tigreegu ay dambiilayaal yihiin oo ay ciidankii qaranka laayeen. waxayna ciidamada qaarkood hadda iska rogeen dhanka kale iyaga oo weli dareyskii Abiy xiran kuna jira furimaha inta badan laga saaray ee ciidamada dowladda Abiy iyo inay u kala dhuumanayaan sidii ay si hoose ula xidhiiri lahaayeen ciidamada mayalka adag ee jabhadda TPLF. waxaana militariga Abiy ka dhex taagan kala shaki iyo amar qaadasho la'aan. sidoo kale xogo hoose ayaa sheegaya in ciidanka dhexdiisa la furfurayo oo ay gacan shisheeye ku dhex jirto iyaga oo u isticmaalaya miisaaniyad aad u tiro badan. saddex ka mid ah shaqaalaha hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee Medecines Sans Frontieres ee loo yaqaano MSF ayaa shalay galab si arxan darro ah loogu dilay deegaanka Tigray iyagoo howlgal caafimaad ka wada hosbitaal ku yaala mid ka mid ah magaalooyinka deegaankaas ee ay dagaaladu saameeyeen. shaqaalahan ayaa isugu jiray ajnabi iyo Ethiopian, mana jirin wax dembi ah oo ay galeen oo lagu qabtay, balse urakac loo dilay iyo inay dhanka caafimaadka ka caawinayeen dadka taagta daran ee hooyooyinka iyo carruurta u badan ee ku waxyeeloobay dagaalada ka socda gudaha deegaankaasi. aad iyo aad baan u argagaxnay markaanu aragnay meydadka saddex ka mid ah shaqaalahanaga oo si arxan darro ah loogu dilay gudaha deegaankaasi Tigray, kuwaasoo kala ahaa Maria Hernandez oo ahayd emergency coordinator, Johannes Halafon oo ahaa assistant coordinator, Theodros Gabramariam oo ahaa darawal. sidaas waxaa ku calacalay qaar ka mid ah shaqaalaha hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudka lahayn ee MSF oo ka howlgasha gudaha deegaanka Tigray. tirada dilka loo geystay shaqaalaha hay-adaha gargaarka ee ka howlgala gudaha deegaankaasi ayaa tan iyo intuu dagaalku ka qarxay gobolkaasi gaadhaysa 13 qof.